nuux taani oo ku sugan magaalada diridhaba ee dalka Itoobiya ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda wadankaasi Itoobiya. Talyaha taani oo ku sugan magaalada diridhaba isla markaana la hadlay warbaahinta magaalada Hargeysa ayaa sheegay in mas'uuliyiinta dalka Itoobiya ee uu kula kulmay magaaladaasi uu kala hadlay amniga xuduudaha somaliland iyo itoobiya iyo sidii dawladda Itoobiya aysan qayb uga noqon lahayn jamhado iyo maamulo gooni-goosada oo laga abuurayo bariga Somaliland. Talyaha waxa uu sheegay in ujeedada ay halkaasi u tageen ay tahay sidii mas'uuliyiinta dalka Itoobiya ay uga hadli lahaayeen in aysan qayb ka noqonin fowdada ka socota qaybo kamida gobolada Somaliland isla markaana lagu doonayo in lagu kala qaybiyo shacabka Somaliland. Talyaha waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta dalka Itoobiya ay isku afgarteen in dawladda Itoobiya aysan wax taageero siinin jamhadaha ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isla markaana aysan taageerinin dhaqdhaqaaqa gooni-goosadka ee ka socda gobolada bari ee Somaliland. Waxa uu intaasi raaciyay in Somaliland ay uga digayso dawladda Itoobiya in ay soo farageliso nidaamka maamulka ee Somaliland isla markaana ay taageerto dadka doonaya in ay maamulo gooni-goosada ka dhisaan gobolada bari ee Somaliland. Hadalka taliyaha ciidanka militariga ee Somaliland oo ku sugan magaalada diridhaba ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii aynu soo dhaaf magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya uu ku sugnaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Doobadaareed oo halkaasi u tagay in dawladda Itoobiya ay ka caawiso maamulka madax bannaan Puntland iyo Somaliland isla markaana loo dhisayo gobolada Sool iyo Sanaag. Waxaana dhawaanahan soo baxayay warar sheegaya in dawladda Itoobiya ay taageertay mowqifka Doobadaareed uu ku doonayo inuu ku dhiso maamulka madax bannaan Puntland iyo Somaliland. Gobolada Sool iyo Sanaag ayaa waxa maamulkooda isku haysta Puntland iyo Somaliland iyadoo dhowr jeerna ay dhacday dirir dhex martay labadaasi dhinac oo mid waliba uu sheeganayo gobolada Sool iyo Sanaag.